وعبد الله محمود كاهي oo loo yaqaano Cabdalla Buurane waxa uu caan ka yahay barta TikTok oo ah aalad ay xilligan dadka intooda badani ay isku mashquuliyaan waqtiyada firaaqadooda bow asxaabta aniga ugu mashquulsan oo dhaay ninku waa culusay waa saan hilibkiis ma culusay halaga arka challenge-ga soo sameeyay darta arka challenge-ga alaga fiirsanin hilibkiis ma culusay markii aad aragto Cabdalle miisaan ahaan waa qof aad u culus oo aadan aamineyn muuqaalada uu soo dhigo bartiisa TikTok inay run yihiin balse aamin waa run waxa uu sameynayo xitaa ma sameyn karaan kuwa miisaan ahaan isaga ka yar dad badan ayaa ku dhibaateeyay miisaanka jirkiisa oo uu kaga duwan yahay dadka kale oo xitaa waxa jira shaqooyin oo uu dalbaday balse culayskiisa awgeed ay ugu suuroobi weysay loogana aqbali waayay taasi oo maanta sababtay inuu ka soo dhex muuqdo aaladan oo uu arkay mid kaliya uu caan ku noqon karo TikTok waxa uu kulifay YouTube aan lahay YouTube-kii markii uu dhaqaaq waayay oo dadkii bulshadii kuma yaqaanaan markaan familkeyga gabdhaha abtiga iyo asxaabteeda oo hadda magacyada kulleena soo kooban laakiin gabdhaha abtiga ahay xaqada laga leeyahay igu soo garab qabto ilaa abti waa inaad TikTok horta laga bartaa laga soo caanbaxda TikTok marka saasan ugu soo biiray wallahi dadka waa dad iska dhib badan dadka badan oo dhibku ugu hayo waxa kamid dadka miisaanka dadku haysto oo ku dhaay insaana tahay oo qofa waliga filinka hadda kuwa beenay ka sheegaan kuwa xeeraba iska sheegaan ayilka dadku ugu dacaydinay waxa uu aaminsan yahay inuu sameyn karo wax waliba ay sameeyaan dadka isaga ka miisaanka yar Cabdalle maraan la kaftamay ayaan weydiiyay culayskiisa waxa uu ii sheegay horta miisaankayga horta Soomaaliya runta la sheegay dhankaas waa ka xaqranay miisaanka marka waxa loogu talagalay dad oo 180 leewa fahant dad 180 le miisaanka loogu soo talagalay anna kulay miisaankii waa ka badan yahay sababta waxaan ku ogaaday miisaanadan 180 ka koray saacadii runta la iska sheeg waa fiican tahay waxa ilaahay baa loo qof binaadna og malaan la soo ma fahmino midka 180 marka digital kan koray oo qolam qanjiima u tagay oo meel meeshan banaadir ku taalo miisaankan saaray waxa soo qorantay eber soo qorantay eber marka taas waa inaan ka badana 180 saas ku ogaaday horta yani waxaan rabaa dadka ciilna marka la hadlaa anoo su'aasha ka jawaab dadka ciilna la hadlaa horta dadka ciilna Soomaaliya waxay ku baqaan baab iskiir anina ciilnahay waa adkaystay wax walba adkaysiya la adkaystaa dad xun waa ku jiraan ilaa waxa keen dadka ciilna u soo bixi waaye marka magaalada aad socotid qof walbo induu kula raaca qof ku dhaha aniyo ninkan balseen biyo kale waxaan ka soo qaado kale gabdhaha iyo dumarka badana ninka haduu kugu fadhiisto ka wareeg isleen falfal cilm waxaan rag waxa jir ka war ninkan dusaan ku yeelo marka dadkii marka shooga qaadeen dadka ciilan shooga qaadeen waxa uu leeyahay Cabdalle koox ka caawisa markii uu wax duubayo kuwa oo la fududeeya juhdi iyo shaqo badan ayuu galiyaa inuu bulshada la wadaago muuqaalada ay baraha bulshada ku arkaan qof moraal fiican dadka qaar ma wax walba dhagtiis uma dhigo mar walba ma baxnaa video ba soo jilnaa anagoo team qof walba qof wax ma lagu sameyn karo gacmo wada jir wax ku yeesaan waxa anaga tabarteen reaction waxa soo dhimnaa kamerista camera mar anaga aqoon mar ninka saqabto reaction sida walba u dhimno waa ninkan caylan waahan itaas inuu isku cilad diidana maan abtigeen camo waa Cabdalle waxa uu kamid yahay dadka caanka ka ah TikTok waxa uu soo bandhigaa muuqaalo cajiib ah oo aysan soo bandhigin dadka kale ee muuqaal ahaan isaga ka yar waxa uu ii sheegay in caqabadooyin uu kala kulmo kuwaas oo ah inay dadka nacsiinayaan cayilkiisa inta dib ee bulshada kala kulmo iyaga oo nacsiinaya hilibka saaran jirkiisa marnaba kama aysan niyad jabin hamiga iyo himilada uu ka leeyahay dunida oo waxa uu ku rajawan yahay hadda inuu ka mid noqdo YouTube-leyda kuwooda uga caansan aniga bari waa bes iska bulanimada waa bes aniga baby cash waa bes
balamiyo waa bes safiya ismaan cabdullaahi shabeelle TV